inaan maanta taagannahay isbartiibadii loogu magac daray halyeygii calanka heestii calankana laga tumaayo halkan waa dhiiggii soomaalinimada waa mahadsanteen waxaan rabaa inaan idiin sheego sanadku markuu ahaa 1948 waxaa jiray 2 wiil oo Soomaali ah oo idinka da'diinoo kala ah waxaan rabaa inaad si fiican u dhagaysataan labadaas wiil waxaa la kala oran jiray Cabdullaahi Ciise iyo Maxamuud Yuusuf Muure Allah u naxariisto Cabdullaahina Allah u naxariisto labadaasuba waxay ka soo jeedaan deegaanadan aad degantiin 1948 markii qaramada midoobay ay yiraahdeen Soomaaliya qof soo dirsato uga hadla halgankeeda gobonimo doonka Talyaanigii halkan jooga waqtigaas waxay yiraahdeen maadaama Cabdullaahi Ciise dirsanaysaan waa in cirbad lagu duraa Muuro Allah u naxariistay oo Cabdullaahi Ciise u eka waxa uu yiri inta adiga lagu duri lahaa oo sun lagu duri lahaa aniga naftayda hibeynaayo waxaan rabaa aniga in la diro markii la duray Allah u naxariistay Muuro Cabdullaahi sidaas ayuu fiisaha ku qaatay sidaas ayuu u tagay qaramada midoobay sidaas ayuu uga soo hadlay xorriyadii sidaas ayuu xorriyadii ku timid waxaan rabaa inaan idiin sheego marka fikirka Muuro iyo Cabdullaahi isku qabiil ma ahayn midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga Gaalkacyo midna koonfurta Gaalkacyo haddii qabiil uu wax taraayo midba wuxuu yiri kan kale ka qabiila aniga naftayda adiga ku qadimaya si adigu aad u wado xorriyadaas su'aasha la rabo maanta in la isweydiiyo waxay tahay xorriyadii wiilashaas ay u dhinteen ammaanada ay idin dhiibeen reer Gaalkacyo xagee bay ku dambaysay laguma hayn karo Soomaali kala qaybsan laguma hayn karo Soomaali xuduudyo kala leh sababtoo ah waxay nooga tageen taariikha in qulubta shacabka Soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin ammaanadii la idin dhiibay Soomaalinimadii dhallinyaranimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka ahaay diyaar ma u tihiin Soomaaliya midaysan Soomaaliya sharaf leh Soomaaliya xooggan Soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada Gaalkacyo hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf reer Gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idin sheego Gaalkacyo nabad ah waa Soomaaliya nabad ah Gaalkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan Gaalkacyo isdhex gasha waa Soomaaliya isdhex gasha xalka Gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay Soomaaliya waa inaad Gaalkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinku daysadaan annaguna waan idin garab taaganaa Gaalkacyo nabadeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro Dhuusamareeb in laga qoro Caabudwaaq in laga qoro Xeraale in laga qoro Hurshe in laga qoro Barambal idinkana diyaar ma u tihiin dalkiina inaad difaacdaan dawladdiinnuna diyaaray u tahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo reer Gaalkacyo waqooyi iyo koonfurba waa Soomaali aan la kala qaadi karin ilaahay ha idin barakeeyo wassalaamu calaykum